السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوديال كسر هذا قنال كنا مسلم كاب وأنا مركلة برنامج كني دقن كيهده إنه كسر حين ترني قراءة عنك أحمد فرح علي إذا جاء وأنا قيبتي كوبات تحركوا سابسن صومالي ده دقن كحدتك. داوديال سيد لقى ورقة بحديد كدت كل بس يود مد أهان أيوكو أبورما حقال لي مو وكو أبورما حدتي نمنا وكو أبورما xigaalku xigaalana waa la yiraahdaa waa dadka xiriirka ka dhaxeeya dhiigga iyo dhalashada ku salaysan yahay oo xagga aabaha ama hooyada isaga xidhan waxa xigaal isu ah inta abtirsiinada dhow wadaagta oo laba oday markay kala tirsadaan midka saddexaad ama kan afraad iskaga soo dhaca waxa la mid ah magacyada kala ah qaraabo xigto sokeeye iyo ashiiro xididka oo barnaamijkan iyo kuwa xiga ay ku saabsanaan doonaan isagoo sida xigaalka kuma abuurmee wuxuu abuurmaa guurka kadib waa xiriir ka dhexdhasha laba qoys mar alla markay isguursadaan inan iyo inan labadooda ku kala abtirsada xididnimadu waxay abuurtaa xiriir aan horay u jiri jirin oo lagu garto magacyo tilmaamaya maantaas kadib xubnaha labada reer ka soo kala jeeda waxa ay isu noqonayaan mar waa seedi oo waa gabadha ninka guursaday iyo walaalaheeda ragga ah waxa ay isu yihiin mar kale waa sadog oo waa waxa odayga gabadha dhalay uu ninka guursaday u yahay mar kale waa sado oo waa gabadha hooyadeed waxa ay u tahay inanka guursaday marna waa dumaashi oo waa hablaha ay inanta walaalaha yihiin iyo ninka guursaday waxa ay isu yihiin intaas oo kale ayay gabadha la guursadayna ku leedahay qoyska uu ninka guursaday ka soo jeedo hooyadiis waa u sado aabihii waa u sadog walaalkii waa u dumaashi walaashiina sidoo kale dhanka kale waxa jira xubno ka soo jeeda labada qoys oo iyagana xidid dhow loo aqoonsanaa asi aan magac gaar ah afka ku lahayn waxa kamid ah inanka iyo inanta labadooda awoowe iyo labadooda ayeeyo adeero iyo ilma adeero abtiyaal iyo ilma abti eedooyin habaryaro iyo caruurta ay dhaleen iyo guud ahaan qolada ay gabadhu ku abtirsato jilib hoosaadka ay ka sii tahay inkastoo haddaba dadka xididka lagu magacaabo ay sidaas u fidi karaan haddana waxaa jira afar qof oo dhaqan ahaan inanka iyo inantaba laga doonayo inay dhowraan goor walbana ay dadka kale uga socnaadaan waxaan u jeedaa sodoga sodohda seediga iyo dumaashiga ama dumaashiga xididnimadu waxay ahaan jirtay hiddo gaar ah oo laga fili jiray ninka gabadha qaba iyo cidda uu ka guursaday inay ku wada dhaqmaan waxay lahayd xeerar la ilaaliyo kala xishoodka kala gabashada iyo wax istaarashada ayaa ugu weynaa cidii dardartana looguma bogi jirin waa lagu ceebin jiray badanaase kala xishoodka iyo wax istaarashadu waxay ku xidhnaayeen marba sida ay xididnimadu ku bilaabanto waxa jiray arrimo ka horeyn jiray xidhiidh wanaagsan oo raandhiis leh xididkuna uu yeesho waxa kamid ahaa labada reer ee dhawaanta xididay oo aqoon hore isu lahaa ninka gabadha guursaday oo dhinaca ragga uu la xididay aan dhaliili u oolin gabadha oo aan lala bixin inta loo soo gogol fadhiistay reerkooda la weydiistay lagana bixiyay xoolo yarad ah oo aabaheed iyo adeeradeed ay ku raali noqdeen waxa kale oo kamid ahaa ninka gabadha guursaday oo sodohda u roonaada sida warasadeedana ugu dhaganuglaada intaasiba waxay ahaayeen xididnimada arrimihii bili jiray guurkana ka dhigi jiray mid raaga oo labada dhinacba ay mahadiyaan koriya ka horsow dadka xigaalka isu khilaaf waa dhexmara kaasoo salka ku haya arrimo fara badan oo lixajaaladu ay kamid tahay sidoo dhaqanku ahaana khilaafkaas oo kale inta isaga yimaadaan ayay ka xaajoon jireenoo si furfuran uga wada hadli jireen haddii dhinacyada wax kala sheeganaya ay dhexdooda ka heshin waayaanna waxay u qoor dhiiban jireen odayo ay ku wada kalsoon yihiin dabadeedna si ay u gaadhaan go'aamo garsoor hufan ku qotoma waxay odayadu labada dhinac weydiisan jireen inay si cadaana dacwigooda u soo bandhigaan arrimaha la isku hayo si ay guntooda ugu daadagaana waxay ragga ishaya ugu mahmaahi jireen xaajo haddaan sidii dabariyaad loo faydin ma faydanto taasi waa xigaalka iyo xigtada arinta xididku iyadu sidaas way ka duwanay marka horeba inuu isqabtaa ma badnaan jirin
hadday dhacdase waxay ka meermeeri jireen murankoodu inuu dabadda u soo baxo wuxuun isqoonsi ahi markii ay dhex maraan in la soo dhex gala ma ay jeclaan jirinoo si hoose ayay khilaafkooda u turxaan bixin jireen waatay ku mahmaahi jireen gacmo geel jire hoos baa loo dhaqaa waxaa xididka ka reebanaa is-eedaysi cod dheer leh waxaa ka reebanaa hadal taagtaagan iyo waxa la kala tabanayo in la soo wada bandhigo markii la isa soo hor fadhiisto waxaa ka reebanaa gocashada badan inkastoo laga yaabo qofka markaa wax tabanaya inuu run ku hadlayo haddana waxaa xididka ka reebanaa is-eedaysiga in lagu talax tago qof walibana waxa uu og yahay uu goobta soo dhigo raad aruuriyo dib looma raaco mahmaahdii ahayd intay is-xusuusiyaan ayay ku dadaali jireen arrinta la isku hayaa in aysan daba dheeraan cid labada qoys ka baxsanina aanay tala ku yeelan waxay sidoo kale madaxa u ruuxi jireen dulucda mahmaahdii kale ee ahayd nin weyn iyo umulisaba siday wuxu og yihiin wax uma sheegaan sidaynu haddaba soo aragnay xididtinimadu waxay lahaan jirtay dhaqan goor noolba kala xishoodka ku salaysnaa kana duwan midka xigtada iyo xigaalku ay ku wada dhaqmaan si aynu taas u sii garannana waxaynugu filan inaan xusuusanno mahmaahdii ahayd tol sidii xidid u wada hadlay kala dhimay wuxuu xididku lahaa hab loo wada hadlo loo kala eed sheegto loo wada xaajoodo loona wada kaftamo daawadayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa haynoo joogo waa inoo iyo mar kale iyo qayb kale oo ka mid ah dhaqanka xididka iyo Soomaalida.